السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحلقتني لبعض إردقانيه إني سوماليا دوين مغالكنا إن شاء الله وحين كو يجينا لولك الصومالي ذا جغرافيا هان سومالي وين وإري بحن وألفي أو سميي قميسجي إنجريس كاها دقالوينه لبعض إدوني ذا الدبدي waxaana uu ku tibaaxayay dhulka ay degaan Soomaalidu oo dhan ama hadaynu si kale u dhigno inta awrna laga rarto dumarkooduna ay gambo xidhaan waana dhulweynahaas ay cadaawuhu boobeen ee inta xeerada laga dhigay nimba intii dhankiisa soo xigtay uu huray ee la fuqay dabayaaqadii qarnigii 19aad waana deegaanada maanta loo yaqaan Jamhuuriyadda Soomaaliya, Jamhuuriyadda Djibouti, Soomaali Galbeed iyo Soomaalida Kenya ama NFD oo loo soo gaabiyay District Northern Frontiers ama deegaanka xuduudka waqooyi ee Kenya. Deegaan weynahaas mararka qaar waxaa loogu yeedhaa Geeska Afrika. Geeska Afrikana waa meesha ay ku kulmaan badweynta Hindiya iyo Badda Casi, waana gebi ahaanba dhulka ay Soomaalidu leedahay ee degto. maadaama ay Kenya iyo xabashidu dhulka Soomaalida kala bar haystaan iyagana waa la iskaga daray markii la qeexayay Geeska Afrika oo waxa ay ka mid yihiin dawladaha Geeska Afrika balse shaqo iyo shughul toona kuma laha geeskaas iyo magacaas la hagoojiyay midna ee dhulka Soomaaliyeed ee ay gumaystaan ayuunba magacaas loogu maamuusay. dhulka Soomaaliyeed guud ahaan marka la isku wada qaado bedkiisu waxa uu dhan yahay 630,000 oo mayl square ama in ka badan milyan iyo bar kilomitir square oo bedka Jamhuuriyadda weyn ee Soomaaliyeed waa 260,000 oo mayl square ama 636,000 iyo 541 kilomitir oo laba jibaaran. bedka Jamhuuriyadda Djibouti waa 8,000 oo mayl oo laba jibaaran ama 33,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. bedka dhulka ay xabashidu haysato ee Soomaali Galbeedna waa 257,000 oo mayl oo laba jibaaran ama 627,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. bedka dhulka ay Kenya haysato ee koonfureedna waa 102,000 oo mayl oo laba jibaaran ama 164,000 oo kilomitir oo laba jibaaran oo u dhigma bedka guud ee dalkaas Kenya 45% ka mid ah. yacni haddii ay Kenya dhulka Soomaaliyeed weydo kala badh waxa ay haysato oo dhan way waayeysaa. waxa kale oo halkan inooga bidhaamaya dhulka Soomaaliyeed ee ka maqan gacanta Soomaaliyeed ee laga haystaa inuu ka baaxad weyn yahay labada dal ee Soomaaliyeed ee madaxa bannaan ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo Jamhuuriyadda Djibouti ba. dawladda Soomaaliyeedna waxa ay ku doodeysaa in dadka Soomaaliyeed ee deegaanadaas degani ay kumanaan sano ka hor u hayaameen oo ku tarmeen waxana ay soo jeedinaysaa in dhulkaas dib loogu soo celiyo oo midnimadii Soomaaliyeed iyo Soomaali weyn mar labaad la soo weeciyo. dhigo iyo lool ahaan marka aynu eegnana dhulka Soomaaliyeed waxa uu dhacaa bedka u dhaxeeya loolka 13aad ee waqooyi ilaa loolka 51.9 ee koonfur iyo dhigaha u dhaxeeya dhigta 41.3 ee galbeedka ilaa dhigta 51 ee bariga. intaas hadii aynu kaga nimaadno juqraafi ahaan dhulka Soomaaliyeed waxaynu eegaynaa bulshooyinka degan dhulweynahaas. dadka dhulka baaxadaas leh deegaanka u lihi waa Soomaali iyo Canfar oo dhammaantoodba muslimiin ah waxaana weheliyay gaalaha ama oromada oo iyaguna muslimiin ah iyo jaaliyado aad u tiro yar oo asalkoodu Carab iyo Hindi ka soo kala jeedo. waxa sidoo kale degan waqooyiga bari ee Kenya oo ah dhulka Soomaaliya qabiilo Soomaali ah si asal ahaan Afrikaan dhalada ahaa oo ah 8 raas ama 8 reer. haddii aynu eegno dhanka ummadda Soomaalidu waa dad ka midaysan soo jireenka iyo qoomiyadnimada iyaga oo haddana ku baahsan dhulka. Soomaalidu waa dad ka midaysan soo jireenka iyo qoomiyadnimada iyaga oo haddana ku baahsan dhulka sidaas oo dhan u ballaaran ee baaxadaas leh lamana helayo dawlad kaliya oo Afrikaan ah oo soo jireenka iyo isirka ugu midaysan sida ay Soomaalidu ugu midaysan yihiin. Soomaalidu waa dad ku hadla afraacsan bahda xaamiga ama haamitiga waxana ay aad ugu qasmeen oo ugu milmeen Carabta. aqoon-yahanada ka faallooda isirkooda iyo asalkoodu halka ay ka soo jeedaan aad ayay ugu kala tegan yihiin. haddii aynu isku dayno inaynu dabagalno isirkoodana waxaynu u qaybinaynaa 3 waaxood waana kooxda reer waqooyiga oo ka kooban 3 qabiil oo kala ah Dir, Daarood iyo Isaaq.
dirku waa jilib ay tiradoodu gaadho in ka badan 150,000 oo qof waa marka aynu u eegno tirakoobkii 1973kii dhulka Soomaaliyeed oo dhanna way ku baahsan yihiin. 2 Isaaq iyaguna waa jilib ay tiradoodu gaadho 400,000 oo qof waa marka loo eego tirakoobkii 1973kii labadaas qabiilna waxa ay ku dhaqan yihiin Djibouti gobolka Herer ee xabashidu ay qabsatay iyo waqooyiga galbeed ee gobolada dhexe ee Soomaaliyeed. qabiilka dirkana waxa ka sii tafiir qaba qabiilada Ciise, Samaroon, Biyamaal, Fiqi Maxamed iyo kuwa yowlamida. 3 Daarood oo ah qabiilka ugu faraha badan Soomaalida tiradooduna ay dhaaftay milyan waxana ay deegaanada waqooyi ee bariga ka xigay deegaanada Isaaqa koonfurta bari ee dhulka xabashidu ay haysato koonfurta iyo waqooyiga Herer iyo gobolka Soomaaliyeed ee ay Kenya haysato raasaskooda ugu mudanna waxa ka mid ah Majeerteen, Warsangeli, Dhulbahante, Kablalax iyo Ogaadeen. 4 waaxda labaad ee Soomaalida qabiiladooda aynu ka soo qaadanayna waa Hawiye iyaguna faro ahaan nus milyan way ka badan yihiin waxana ay degaan aagaga waqooyi ka xiga qabiilka Daarood. waxa sidoo kale jira iyaguna laba qabiil oo kala ah Digil iyo Raxanweyn badina qabiilada Soomaaliyeed asalkooda iyo isirkooda waxa uu ka soo jeedaa oo ku aroora Carab qabiilada waqooyiga deegaano wayba ku faanaan isirkooda Carabiga ah inkasta oo ay jiraan qabiilo Soomaaliyeed oo koonfurta dega oo ku dooda in isirkoodu uu yahay Afrikaan. lama hayo faraha iyo tirada rasmiga ah ee Soomaalida balse marka dusha laga eego tiradoodu waa agagaarka 10 milyan oo jamhuuriyaddii weyneed ee Soomaaliyeed waxa ku dhaqnaa 4.7 milyan oo qof. tirada Soomaalida ka soo barakacday xabashidu dhulka ay haysataana waxa ay ahayd 1.3 milyan 45% ka mid ah shacabka Djibouti oo nus milyan ahina waa Soomaali. Soomaalida galbeedka ee degan Herer iyo Ogaadeeniyana waa 2 ilaa 3 milyan oo qof. Soomaalida ay Kenya haysataana waa nus milyan. inta hadii aynu ku soo dhaafno arrimaha Soomaalida aynu fiirsano dhanka Canfarta. Canfartu waa dad leh dhowr magac iyaguna waxa ay isu yaqaanaan Canfar Carabtuna waxa ay ugu yeedhaan Danaakil xabashiduna waxa ay ugu yeedhaan Adal ama Adal. Soomaaliduna waxa ay u yaqaanaan Ood Cali oo ay uga jeedaan ubadkii Cali. dhulka Canfartu waxa uu fidsan yahay dekada Masuuc ee Eritrea geeska Djibouti wabiga Hawaash ilaa magaalada Disi ee xabashidu ay haysato. dhulkooduna waxa uu ka kooban yahay gobollo isku wada xidhan oo ay isaga gooshaan jidad bari ah iyo kuwa buuro ahba. guud ahaan dhulka ay ku fadhiyaan waxa uu gaadhayaa badkiisu 55,000 oo mayl square. way isdhex gashan yihiin dhulka Soomaalida iyo Canfartu gudaha Itoobiya. Canfartuna waa sida Soomaalida muslimiinta ah ee walaalahooda ah oo waxa ay degaan bananka iyo togaga agagaarkooda halka ay xabashiduna buuraha door bidaan waana xoolo dhaqato waliba geela ku dhaadata sida Soomaalida. deegaanadooda ay xabashidu ka haysatana waxa ay kula midaysan yihiin Soomaalida oo wax la yiraahdaa aagooda ismaamulka Danaakisha iyo Ciisaha waana aaga maanta loo yaqaan Hawaash waayihii horena loo yaqaanay Herer. waxana intaas Canfarta u sii dheer taliskooda Cawsa Danaakili waana qoomiyadda labaad ee Djibouti ku labaysa Soomaalida waxana uu habmaamulkoodu u qaybsan yahay 2 nooc oo kala ah. taliska Tajoora oo ah isgaashaan buureysi ka dhaxeeya 36 qabiil oo Canfar ah iyo taliska Raaxtiye oo ah isaguna isgaashaan buureysi dhex maray 32 qabiil oo Canfar ah waxana uu fidsan yahay Djibouti ilaa Eritrea. asalka Danaakisha ama Canfartu waxa uu ka soo tafiirmay Carabtii asalka ahayd ee 5,000 oo sano ka hor ka soo hayantay jasiiradda Carbeed balse waxa ay ku milmeen oo ku qasmeen qabiiladii Afrikaanka ahaa ee xaamiyiinta ahaa waxana ka soo baxay haybtirsigan Danaakil ama Canfar. sida Soomaalida ayayna yihiin muslimiin iyaga iyo walaalahooda Soomaaliyeedna si nabdoon oo xasiloon ayay weligoodba maamulada iyo talisyada iyo boqortooyooyinka u wada dhisanayeen. inkasta oo gacaltooyadaas oo dhammi ay ka dhaxaysay Soomaalida iyo Danaakisha ama Canfarta haddana dhawaanahan ayay damceen xabashidu inay siyaasad qaybi oo xukuna ku dhex beeraan labada qowmiyadood ee walaalaha ah ee ku jira xuduudka ay haystaan xabashidu. sidoo kalena hore ayuu isugu dayay gumaysigii Faransiisku inuu kala irdheeyo oo kala geeyo labada qabiil oo waxa uu kala bixiyay Djibouti gobolka Canfarta iyo gobolka Ciisaha. dhanka cadaawadda ay xabashida u hayaan Canfartuna waxa ay la mid tahay Soomaalidu u hayaan xabashida oo isku mid ayay ula colaytamaan. tirada guud ee Canfartuna waxa ay gaadhaysaa 1.5 milyan oo ruux. Djiboutina waxa kaga dhaqan 100,000 oo kaliya
inta kalena dhulka ay xabashidu ka haysato ayay ku jirtaa. intaas haddii aynu kaga nimaadno canfartana aynu isla eegno gaalaha ama oromada. oromada waa dadka isir qaba xaamiyiinta ama sida ka dhow ee loo yaqaano haddii aynu u eegno kuushiyiinta, waxaana ay xidhiidh isir leeyihiin canfarta iyo soomaalida. afka oromaduna waxa uu ka agdhow yahay uun afafka labada qowmiyadood ee soomaalida iyo canfarta marka loo eego qaabka loogu dhawaaqayo. waxa ay iyagu isugu yeedhaan oo isu yaqaanaan oromo. marka la dabagalo magacoodaasna waa magaca oday ay ku abtirsadaan oo isugu yimaadaan laamahooda qabiileed, mana jecla magaca u caanbaxay ee gaala oo waxa uu xambaarsan yahay dhaliil ah kuwo xadgudub badan geystay ama diinta ka baxay, oo waa isla macnaha ay soomaalidu u adeegsato ereyga gaalo. oromadu waxay waayahan degaan koonfurta galbeed ee Itoobiya, waxaana ay degaan badka u dhaxeeya loolka afraad ee waqooyi ilaa loolka 12aad ee koonfur iyo dhigaha 24 ilaa 44 bari ah. degaankoodaas waxaa koonfurta ka xadeeya Kenya iyo Soomaalida, waqooyigana dhulka xabashida ama Amxaarada, barigana Jabuuti, galbeedkana Suudaan. xabashidana waxa la siiyay oo ay qabsadeen dhulkaas oromada qarnigii 19aad, waxaana ay ahaayeen qayb ka mid ah boqortooyooyinkii islaamiga ahaa. shirkii Berlin ee sanadkii 1884 ilaa 1885 ee lagu gobolaystay geyiga Afrika muddooyinkii ka dambeeyay ayayna bilaabeen xabashida oo ay awoodaha kalena la cadaadinayaan inay isku soo ballaariyaan dhulweynahaas oromada, maadaama ay xabashidu ahaayeen Kristan ku dhex yaala badweyn islaam ahna. reer galbeedku waxay ka dhiganayeen goostambeed u fadhiya Afrika, iyaga ayaana garab iyo gaashaanba u ahaa ilaa intii ay soo gaadhaysay xuduudaha maanta ay la wadaagto dhulka Soomaaliyeed ee ay qabsanaysay dhulka baaxadaas leh. oromadu waa qowmiyadda ugu badan dalweynaha ay xabashidu ku amartaaglayso ee Itoobiya, oo waxa ay ka yihiin 40%, tiradooduna waa 16 ilaa 20 milyan. oromada degan deegaanka Herer oo dhammaantood muslimiin ah, tiradooduna ay gaadhayso 1 ilaa 3 milyan oo qof, iyaguna waxa ay ku hadlaan uun afkooda asalka u ah, inkasta oo aanu qornayn oo aan weli xarfo cayiman loo samayn si isaguna uu u janjeero dhanka laatiiniga. oo sanadkii 1776 ayaa si loo kiristaameeyo oromada kitaabka Bible-ka loo afnaqay oo loo tarjumay afka oromada isaga oo leh xarfo laatiini ah. oromadana haddii aynu intaas kaga nimaadno aynu isla eegno ummadaha kale ee la degan qowmiyadahaas. dalweynahaynu ku tibaaxnay magaca ah Soomaali weyn, saddexda qowmiyadood ee ugu baaxadda weyni waa Soomaali, Canfar iyo Oromo. iyagana waxaa soo raaca qowmiyado kale oo tiro yar oo ku dhex filiqsan, waxaana ka mid ah Carab Yamaniyiin ahaa oo xilli waayo ah u hayaamay dhulkaas Soomaaliyeed, iminkana ku dhaqan Jabuuti, Herer, Diridhabe iyo Muqdisho. tiradooduna aanay ka yarayn 100,000 oo qof, badankooduna waxa ay ka guursadeen dadkii dalka lahaa oo ay ku milmeen. in yar oo aan badnayna way ilaashadeen isirkoodii oo qowmiyadahaas kale ma ay dhex gelin. waxa iyaguna aan ka maqnayn labada gobol ee Herer iyo Ogaadeen iyo qaybo ka mid ah qowmiyadaha Itoobiya oo ay horboodayaan Amxaarada oo deegaano ka go'doonsan dadka kale ka deega labadaas gobol. sidoo kale Jabuutina waa laga helayaa. waxa iyaguna jooga qolo la yiraahdo Hereriyiin oo ah dad ka hadhay duulaankii uu Rauf Baasha ku soo qaaday Herer 1877 oo iyaguna gaadhayo 51,000 oo qof. waxa iyaguna aan ka maqnayn jaaliyado Talyaani ah, kuwo Faransiis ah iyo kuwo Hindi ahba. inahaas ayaynu ku dhaafaynaa xalqadeennii maanta. wassalaamu calaykum.